suxul iyo mariikh maalintay wada socdeen weeye sawjiya ninkeed maalintay kala socdeen weeye ninkii sacal ahaa maalintay kala safreen weeye waa gobay Soomaaliyeed weeye suxul iyo mariikh maalintay wada socdeen weeye sawjiya ninkeed maalintay kala samreen weeye ninkii sacal ahaa maalintay kala safreen weeye buu waa gobay nin Soomaaliya wuu xidiguhu tiriyey xidiguhu wax ma haystaan Ilaahay baa roobka keena inaad xidigaha wax ka daydaan iyo roob iyo risqi ka daydaan iyo inaad mayd dhintay oo alla dilay u qaylisaan iyo inaad nasabkiina wax ka sheegtaan oo mid waliba ka kala yiraahdo hooyadaadii ree hebel abahaagi kanaha iyo inaad isugu faantaan reeraha iyaga sameeyay waxaadan adigu samac iyo basar ku lahayn goobtii lagu sameeyay joogin afartaasi waa min a'maalil jaahiliya kana tagi maysan nabi Muhammad baayid alayhi salatu wasalaam wala tartamay maalin maalmaha kamida carabul jaahiliya niman laba qabiil ka kooban oo banaan isugu yimid baa tartamay faraska yaga badiya iyo kaayaga badiya baa la yiri waxay yiraahdeen labada faras midkii dheereeya ee meel heblaaye horgaada ninka wata 100 halaad hal la siiyo hana loo qoro inay qabiilkiisu sharaf badan yihiin labadii faras markay orodkii bilaabeen dhalinyaro haybtooda labada qabiil mid kamida ka soo jeeday waxa u muuqatay faraska suldaankooda in laga dheerayn doono dabeedna waxay go'aan ku qaateen faras labadanba ka dheereeyay intay qaataan oo tog halkaa hore labada boqor ee tartamaya ama labada suldaan ama labada ugaas ama labada caaqil ay u galaan haddii faraskoodu soo horeeyana inay sii daayaan haddii ka qabiilka kale soo hormarana si ay qabiilkooda ceebta uga ilaaliyaan inay boqnaha jaraan baa u muuqatay faraskii oo ordaya yimid kii qabiilkii kale waa tii laga cabsanaayo laga baqanayay faraskii baa labada boqnood la jaray 42 sanadood buu dagaalkii ka bilowday socday waa kibir iyo dharag laba faras oo tartamay weey waxaa jiray qiso la yiraahdo حرب الفجار wuxuu ka bilowday baa la yiraahdaa riwaayaadka mid kamida inuu nin cukaad suuq la yiraahdo isagoo subax jooga yiri arya iga laan dheeraysan oo meesha jooga saaka markaas waxa lagu yiri adigoo ree hebel oo inan gumeeda miyaad anaga naleedahay anagoo cukaad la jooga saaka iga laan dheeraysan anagii baaba joogna saadada ku ahayna seed noo aragtaa markaas wuxuu yiri arninkii iga laan dheeraysan lugtayda ha jara saaka lugtiida loo yimid waa la gooyay rag badan baa u dhintay waxa lagu qiyaasaa 72 oo nin baa u dhimatay lugtaas Soomaanad garanin mujtamaca sida u noole qabyaaladiisa iyo tharigiisu sida yahay ala la yajhalanna ahadun alayna fanajhala fawqa jahli aljahilina ba gobaygooda kamid ahayd haddiina la gardaraysto gardarra dusheed baanu gardarooyin ku xallin doonaa buu ku hanjabay nin laandheeranimo sheeg kuwaasaa ilaahay nabi Muhammad u soo diray wuxuu u sameeyey oo islaamku u jiheeyey in wixii ay ku fikirayeen inta laga saaro wax ka wanaagsan loo tilmaamo oo la yiraahdo waxa lagu fikiri islaamka maxaad u qabatay waxa lagu fikiri diinta halkeed gaarsiisay waxa lagu fikiri imisa miskiin baad caawisay waxa lagu fikiri oo lagu tartami imisa quraanka yaad xafidsan tahay waxa lagu fikiri oo lagu tartami imisa musaalaxa iyo dadibu heshiisay imisa cadaawad iyo fatiil iyo dhibaato jirtay meesha ka saartay amthila al-ulya wal ahdaf al-aliya bu quraanku sameeyay marka ilaahayna wuxuu leeyahay ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قاعدة ذا سلسي وحال يدك إذن كو شرفت بدن بدون إيسان وإذن كو الإيمان والعمل الصالح إذن كو بضية إلهي إذن كل وغا هضب إذن كو شرف بدن بألا يري ما هكي قيسكودو ترب بدن يهين ما قيسكودو يريهين معنوه ما أهبالي إلهي وحوت المامي inaad qabiil ka dhalataay maaha inaad dadka ugu faanto waa li tacaarafu in lagu garto waxaan ahay hebel ree hebel baan ka ahay dadku inay isgartaan oo qofka nasabkiisa la garto laakiin waxa la isugu faani karaa inna akramakum inda Allahi atqaakum qaa'idada salaynasi jaahiligu waxay haysteen waxaynu maanta haysanno oo wali inaga tagin oo dhibaato oo ah
in qaacido waxay isticmaali jireen unsur akhaaka daaliman aw madluuman ina adeerkaa mar walba isgarab taag hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay waa in adeerka nebi moxamedna tiun buu ku celiyey uu ku yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman war waa sax buuhi qaacidadaasi maba khaldana saxaabadii markaasay yaabeen oo waxay yidhaahdeen annaga caadadayadu waxay ahayd in adeerkaa mar walba garab taagnow walaakiin dhibaatada ah in islaamnimadii annagoo qaadannay oo qabyaaladii ka tagnay nalagu yidhaahda xadiid saxiixa nebi moxamed unsur akhaaka daaliman aw madluuman ma wixii baa dib loogu noqonaya maya nebigu tacriif kale unbuu saaray isla qaacidadii weeye laakiin dhaqankiibuu wax ka beddelay muxuu tilmaamay wuxuu yidhi walaalkaa u gargaar haddii la dulmay cidda dulmaysa ka qabo waxaad tidhaahdaa war waad ka gardaran tihiina jooga hadduu isagu wax dulmayana dulmiga ka qabo waxaad tidhaa war waad gardaran tahay hebelow joog xadkaa ma dhaafi kartid xaqa adigu ma lihid macnaheedu waxa weeye marka haddii aad qabato ood gacanta qabato isaga nusro waxaa waa inaad dulmigii uu geli lahaa iyo xaqdarradii ka qabatay weeye isla qaacidadii baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uu ku keenay oo la isticmaalay